madaxda xusbiyada qaranka mujaahidiinta halkan fadhida waayeelka saraakiisha ciidamada dhallinyarada dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. caawa sidii ragga horeba u sheegay waa habeen taariikhi ah. waxaynu xusaynaa taariikh halgamaa astaan qaran u ah halgankii muddada dheer socday ee gebagabadiisii ay ku soo intihootay in taliskii nacabka ahaa lagaga xoreeyo dalkan aynu maanta joogno ee Somaliland kuna haysanno nabadgelyada dowladnimada dimuqraadiyadda iyo nidaamka wanaagsan ee aynu ku noolahay. in ku filan waa laga hadlay, raggii goobjoogga ahaabaa ka hadlay, raggii mudanka ahaabaa ka hadlay, raggii halganka ay isku da'da ahaayeen baa ka hadlay, raggii hawsha wadawaday baa ka hadlay. waxyaalaha la yaabka lihi waxa weeye waxaynu ka hadlaynaa maxamed xaashi diiriye lixle wuxuu ahaa saraakiishii caanka ahayd ee ciidamadii Soomaaliya xagga aqoonta iyo xagga aragtida iyo xagga cilmiga injineer buu ahaa, nin aad u diyaarsan buu ahaa. waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah markaynu leenahay lixle iskamaynaan siinin marka la leeyahay astaantii halganku ahaa. waxaad ku garanaysaan ninka darajadaa leh ciidamada lagu hayn kari waayey taliskii ka baqay ee haddana dee dalka gudihiisa ku jiray ee halgankii gudaha ka waday. halgankii waa la qorsheeyeyo ragna waxa loo qorsheeyey inay baxaan gudaha halgankii ka waday. xagga ciidamada laba nin baa mas-uulka ahaa, waa maxamed xaashi diiriye axmed maxamed xalaac oo isaguna xamad joogay. maxamed xaashi iyadoo halkaa laga raadinayo oo sidaa loo raadinayo hargeysa ku noola, hargeysu ka tago gaashaamuu noogu yimi. aadan cumar dayuro ayaa dhaweyta dhintay allah yarxamo, nin aad u qiimo badan ahaa oo reer hargeysa abaa siday. hargeysu gaashaamuu nagaga soo noqday oo halkan u yimi, halkan uu ka tegayoo burcuu tegey, haddana wuu nagu soo noqday. halkaa maxamed faroole meeye miyuu kacay? halkaa ninkii fadhiyey macallimiintii la foola ahaa maxamed jaamac maxamed xayd ina jaamac faroole oo xidhiidhkii halkan ka ahaa walaalkii cali baashan ka soo saaray gaashaamo. nin aanu garanaynin baan ayaa wada. ninkii waxaan ku idhi lixle waa ninka halkaa taagan, lixlena waxaan ku idhi ninkaasuunbaa dabagelaysa. faarax xadhigliya halkan ka hadlaayey iyo codkii uu cabdiraxmaan dhadhegtirinayey ayaanu u soo dirnay, halkaasaa lagu hayay. hawshaas markii uu fuliyey haddana mandheere markuu operationkii fuliyey raggii halkan joogay wuu soo diray. nimankii halkan ka hadlaayey laba nin baa ku dhaawacmay. nimankii halkan ka hadlayay mid muuse nuur faandhuu ahaa, ka kalena jaamac kharash buu ahaa, caawayna lama joogo. direysarkii looga yimina halkanuu maanta hargeysu inala joogaa. talisood buu ka shaqeeyaa caydiid, labadaana waxay kaga yimaadeen meel. halkaasuu haddana ka tegayo burcuu galay. annu markaannu qiimaynayna saraakiisheedu soconno marmarka qaarkood lixle waxaannu ku qiimayn jirnay dhiiranaantiisa iyo geesinimadiisa. axmaqnimo qayran caadi oo saadiya baa ku jirtay. marka dambe waannu ka shakinay, xidhiidh baannu lahayn. kood neemkiisa khayraa loodhan jiray lixle. warqad baama soo diray, waxaan ku yidhi haddaad soo bixi weyda anigaa imanaya. cawil basbaasood ninkii halkan joogay baa la saaray. magaalada burco ninkii yaqaano marka xagga hawdka loo baxo meel yaroo ku dhoobaa jirtoo la yidhaahdo faraska boodka gaaniyoo xodka ka yimi ayaa haddana gaadhigii la kulmay, wuu joojiyey. lixle gaana wuu garanayaa. maxaan ku idhaahdaaye sanadii labay meela kala horreeyeen, xarunta gaashaandhigay ka wada shaqayn jireen. gaadhigii wuu qabsaday, dabadeedna intii yareydada maxaan ku idhaahdaaye
reer Soomaaliland taliskii la qabsaday bay xoogaa ku murmeen taliya waatan dhaqanqadii dhaqdhaqaaq waatan oo yar bashbashaleeyeen socodku kuulintu magayo caayay waana runtiisoo lixda warkii uu sheegay ninkan loo sheegay muu garanaynin muusin ninkii guriga uu la joogay Faarax Adigley ay u geeyeen Maxamuud Ismaaciil Kiniin markii uu baxay uu ogaaday ninka guriga la sixan jiray inuu lixla yahay walaalkii Abu Dabay joogo uu qeylad dartay wuxuu waa lay tooganaya oo lay qabanaya ay fiisay soo dar ila dalku xoroobay dib uma soo gelin horta waxyaalaha xaqiiqada dhabta ah markaas suuro geliyay inuu halganki sidan ku socdo horta sirta kamida qoraalada yada iyo kaarka waxa noo hayay in injineer ay dhawid u dhintay family-giisa haya faylka iyagiyo dhan buu hayaa Cabdi Haybe waa institute-ka Burco macallin ka ahaa operationadii lixda qorsheynayay direyskoodina institute-ka Burco ku hay dheerkii markuu yimi buu na tusay مثلا halkan waxa wuxuu la joogi jiray Cabdiraxmaan Ismaaciil Samatar book shop jawaan ninka la yiraahdo oo aroosa ayaa lixda guriga ku hayay Cabdiraxmaan halka ka hayay Cabdiraxmaan guriga ku hayay Maxamed Ismaaciil guriga ku hayay dadna waa laga qarinayay dadna way hayeen marka runtii lixda ninka noocaas uu ahaa markii aan baxaynay marka xulkayga halka joogay isaga wada saaray anigu markii aan baxayay wuxuu ii diyaariyay gaarigii Mahdi Isxaaqin la yiraahdo gaariga lahaa Cabdi Qayska halkan fadhiyay iyo maxaan ku raaqaday Khatra Ismaan Ali Weyne oo libaaxa lagu naanayso oo gabadh la yaab ah oo meelihii lixda uu ka wadi jiray xiriirka gudaha oo imika la joogto barbarna noo timaada labadaas ay raacay allay baday bay kaga soo noqdeen lixda markaa wuxuu hayay xiriirka noocaas ah inuu gudaha ka wado markii dambe ay noqotay xaaladdu inay adkaato oo aanu gudaha joogi karinna waa marka maxaan ku raadayay dabada loo soo saaray waxa xaqiiqo dhab ah sidii Ibraahim Dhagaweyne uu sheegay Axmed Mira uu sheegay maalintii uu geeriyooday yacniga waa la dareemay oo waxay leedahay sana maalinta la yiraahdo maalinta shuhadada sababta loo bixiyay waxay ahayd waa maalintii tirada ugu badeed ee mujaahidiinta 26 soo dooreeyo ayaa lixla la dhintay inta ay leegana dagaalkii dhabarkay ku dhimatay dabadeed waxa la yidhi nin walba maalintiisina go'naha loogu xuso maalintaasina maalin ka wada dhaxaysa ha noqoto laakiin ciidankii faraha badnaa ee xoogga ahaa soo weerarayna khasaare u badnaa ku sameeyeen wiig dabadeed ama ilaa 10 casho ayaa ciidankii Ibraahim Dhagaweyne iyo Axmed Mira ka sheekeeyeen uu gudaha galay dabadeedna waxa dhacday marxaladii ugu adkayd ee kala saartay marka la qiimeeyo halgankii SNM iyo taliskii Maxamed Siyaad Barre marxaladii kala saartay ee kala hubisay cidda guushu ay ku dambeynayso ayaa maxaan ku dhahday la sameeyay dawladaha reer galbeedka dawladaha carabta dadkii Soomaaliyeed dareerayay qiimeyntaasay maxaan ku dhahday ku sameeyeen guusha aad ku balaaran baa la gaaray waxayna noqotay lixile intaanu wiig aasnayn in dagaalka balaaran ee gudaha maxaan ku dhahday lagu qaado shakhsiyada aad u wanaagsan buu ahaa qadarkaas sidaa noqday qofna maalintiisa ma dhaafo laakiin waxaan doonayaa caawa intaan ku soo ururinaya waxa weeye mujtamaceena faraha badan ee halkan fadhiya daayir bay u badan yihiin hablaha halkaa fadhiya iyo inamada daayirtay halkaa fadhiya haddii caawa su-aal la weydiiyo la yidhaahdo xaaji cumar askar kumu aha cidiba garan mayso xaaji xasan geella kumu aha cidiba garan mayso Michael Maryam kumoha cidiba garan mayso xisbiyadeennii SNL NUF USB taariikh halgameedka aynu lahayn dhallinyaradeenna si garan mayso taasaa lumisay xorriyadeennii 1960 maanta
halkan arrinkii laga sheegay waxa weeye waxa khasab ah qaran kasta iyo ummad kasta haddii aanay taariikh lahayn ma soconayno yurub waxa jira qolo maxaan ku dhahday marka yurubta galbeed la joogana jibsi la yiraahdo marka yurubta bariga la joogana siigan la yiraahdo oo aan dal lahayn oo aan dal loo diidin oo guuro oo iska socda oo dad aad u wanaagsan oo dhaadheer oo qurux badan weeye lagama maarmaan waxa dhalinyaradiina halkan joogta in aad barataan taariikhdii dadkii idiin soo halgamay South Africaanku apartheidkii 1915 meelaha bilaabmay markii mustacmaradihii South Africa ay ka horeeyeen kuwa Afrikada inteeda kale dhalinyaradii daayartiinan la leekayd ee dhashay xilligii Nelson Mandela la soo daayay waxa la yiraahdaa born free generation baa la yiraahdaa born free generation imaka qoladiina waxa la rabay inaad tiraadaan annagu berigii lixlaan u dhalan annagu berigii aadashiinaan u dhalan annagu berigii koonfur baan u dhalan annagu berigii askar baan u dhalan hadama bila taariikh baa noqonaysa miya saxan karaysa marka waxaynu u baahanahay ajandayaasheena xukuumaddana waynu ku daraynaa kurukalamka wasaaradda waxbarashadana waa laga hadlayaa tan labaad ee imika lagu fadhiya waxa weeye esana markii fikirka ay la timi ee dadku xoroobay fikirkii lala yimina wuxuu ahaa dadka reer Somaliland talisna cabada isku keen dilayay dad walaalo dalka wada labaynu nahay waynu wada fadhiisanaynaa dalka waynu ka wada tashanaynaa taasaynu maanta ku wada fadhinaa taasay Somaliland maanta ku wada dhisan tahay taasaynu ku samaynaynaa oo ugu abtarinaynaa halgankii xilligii daraawiishta ina Cabdalla Xasan xilligii maxaan ku dhahday SNL xilligii NUF Sheekh Bashiir Farax Omar SNM halkaasaynu ka soo bilaabaynaa USB SNL halkaasaynu ka wadaynaa waxaynu leenahay markaa ilaahay ha u naxariisto shuhadadii halganka ka soo qayb qaadatay ee shahiiday allana ha u roonaaday inta maanta nool inta dhaawacantay inta ku naafuuday intabana waxaynu leenahay aad iyo aad ilaahay ha u barakeeyo hadraawibaa maalin la xusaayey lixdii abril ee SNM la aasaasay 1982 ayaa wuxuu hadalkiisii ku daray ninka SNM ku naafoobay oo naafannimada waa inaad ku faantaa waa dhawad waxa baqtiyay islaantan ingiriiska boqorada odageedii baa fadhiyay odaygu wuxuu ka mid ahaa dagaalkii labaad ee adduunka raggii dagaalay u ahaa maalinta loo dabaaldegayo guushii lagu jabiyey jarmalkii ee xulfigii ingiriiska faransiiska maraykanka iyo ruushku ay guulaysteen lama fadhiisto boqorada lama fadhiistana dowladda ingiriiska wuxuu la fadhiistaa batalyankii dagaalka uu la galay ayuu soo maraa marka waynu qiimeynaynaa saraakiisheennii baa halkan fadhida kelmaddan kaga baxaya waxa weeye sida looma qurux badnaadeen sidana laysagama cadcadaadeen xablaheennani waxaanoo xarraga iyo dahabka ka qalalxale iskama isiteen haddii aan lixile iyo raggii la nooca ahaa aanay idiin shahiidin oo aanay maxaanku dhahday idiin dhimanin waa xasuusanaynaa qalbigiidayna ku xasuusanaynaa hogaamiyaha ku dayataan buu ka mid yahay jaamacaadi aad baan ugu mahadnaqaynaa jaamac gaashaamacadde oo buuggan qoray oo mas-uuliyadda inaga wada qaaday mujaahid ahaa sarkaal ahaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa habluhu markii dhawaytay dee jaamac hor ka soo fuulayay oday gaboobay oo ayaa moodaysaane xarragu la liicliicay waxaana ku talagelaysaan waa ninka buugaagtan qoray oo kun aroos iyo arrimo badan buu qoray inanku waa doob
guurdoon baanu nahay hawday magacaanina aad iyo aad baa u mahadsantihiin